shirkad qaabilsan ammaanka ayaa oo ay leeyihiin shakhsiyaad Soomaaliyeed ayaa la siiyay ruqsad ama ogolaanshaha ay kaga howlgalayso wadanka Kenya iyadoo waliba ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Kenya sida magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi ay soo dhaweeyeen sheegeen inay shirkadaas kala qayb qaadan doonaan ama ka kaashan doonaan sugidda ammaanka wariyaha iyaga TV-ga qaranka Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ee wadanka Kenya Maxamed Axmed Ilkaase ayaa umuurtan qaada dhigaya shirkadda Global Security and Monitoring Center oo shirkadii ugu horeysay ee nooceeda ah oo si gaar ah loo leeyahay waxay ka shaqeyn doontaa ammaanka goobaha baayaca mushtarka ee shacabka Soomaaliyeed waxaana ay shirkadani si toos ah uga hawlgali doontaa wadamada Kenya iyo Soomaaliya shirkadda Global Security and Monitoring Center waxyaabaha ay keentay waxa kamid ah kaamirooyinka wax basaasa qalabka dhawaaqa marka ay goobta tuugadu soo gasho iyo sidoo kale qalab lagula soconayo gaadiidkaaga marka uu taraaga galo oo goobta uu socdo aad ku ogaan doonto isla markaana aad halka uu marayo ku damin karto hadii ay tuuga ka dhacdo gaadhigaaga waxa sidoo kale qalabkan casriga ah oo aan horey dhulka Soomaalidu ay degto looga isticmaali jirin ay keentay shirkadda Global Security and Monitoring Center kamida ay la shaqeyn doonto oo ay yeelan doonto ciidamo sharciyeysan oo hubaysan kuwaas oo jawaab degdeg ah ka bixiya marka ay dadka shirkaddan qalabkeeda isticmaala ay soo dalbadaan caawinaad degdeg ah shirkadda Global Security and Monitoring Center waxa ay dhawaan ka hirgelin doontaa magaalooyinka Soomaaliya qalabkan casriga ah iyada oo ka bilowday hadda magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda ay Soomaalidu degtay ee Islii Saciid Axmed Xaaji Xasan Carays iyo Cabdullaahi Maxamed Cali oo kamid ah madaxda shirkadda ayaa waxa ay sharaxaad ka bixiyeen qalabka casriga ee shirkaddani keensatay iyaga oo sidoo kale ku dheeraaday qalabka noocyada uu yahay iyo waxyaabaha uu qaban doono annaga oo ah maamulka company-gan ama shirkaddan ayaa waxaan codsanay inaan la kulanno maanta dhammaan ganacsatada ku nool xaafadan Islii iyo meelo kale oo ka baxsan Isliiba si aanu ugu sharaxno ama aanu ugu cadayno waxa aanu u hayno ee adeega ah ee aanu ugu talagalnay dhibaatooyinka faraha badan ee ka jira ganacsiyadeena iyo suuqyadeena in aanu u cadayno waxyaabo wax badan ku soo kordhin kara inaan hayno dadkana ay fahmaan dhibaatada in haysata iyo culayska in haya waxyaabaha lagaga bixi kara qaybo kamid ah inay gacanteena ku jiraan haddii aan wax yar galo macnaha CCTV wax badan waa maqasheen waa qalabka aaladda maaragtay kaamirooyinka ah oo aad ku ilaalinaysid ku arkaysid dhaqdhaqaaqa waxa socda ha ahaato ganacsigaaga meesha adigu ugu tala gashay inaad ka waxaydo macnaha marka faa'iidooyin badan ay leeyihiin oo halka aan ugu soo koobi karin haddii aan ka taabto wax yar kamid waxa kamid ah inay tahay deterrent macnaha inay cabsi gelinayso qof walba ama ku fikirayay inuu wax dhaco ama wax boobo ama wax jabiyo ama faldambiye suubiyo marka qalabka aan ku rakabayno alamka ah wuxuu masaabaxayaa haddii la isku dayo in meeshaas la jabsado isla markiiba inay signal bixinayso macnaha signalkaas ay u soo dirayso control room aan leenahay oo 24 saac la joogo macnaha oo monitor gareynaya wixii ka socday dhaqdhaqaaqa macnaha qofkii dukaanka lahaa ama dadka u cayimay inay ogaadaan fariin taleefankiisa loogu diri karo ah dukaankaaga waxba ka dhacay macnaha ciidamadeeni oo ayaguna hubaysan sharciyeysan isla markiiba ay ku ordayaan degdeg ah ay gaarayaan meeshii si ay bal u soo fiiriyaan wixii ka dhacay macnaha dadka xataa waardiyaasha ah muhiim ma ah inay albaabka taagan yihiin macnaha ayagoo ka jooga dhinaca ilaa 200 mitir ka taagan ee hadday tuun galaan habeenkii ay taaba karaan batan aan siino ugu talagalna macnaha inaan siino batankaas ay taabtaan wuxuu ku cinayaa Allah macnaha ah dhawaaq taasoo laftigeeda ku filan qofka tuuga ah isku day inuu waxadaay macnaha waa hubaal wax badan inay iska bedeli doonaan xaaladihii ammaan ee goobaha baayac mushtarka shacabka Soomaaliyeed marka ay shirkadani shaqadeeda si toos ah ay uga bilowdo dalka Soomaaliya iyo xaafadda Islii oo ay hadda si toos ah uga bilowday intaba Maxamed Axmed Ilkaase telefishinka qaranka Nairobi